kusoo dhawaada war wixii deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa naga soo gaaray oo faahfaahsan waxa la soo gabagabeeyay shirkii caadiga ahaa ee golaha EPRDF oo lagu qiimeeyay shaqooyinkii la soo qabtay shirkan oo ay ka soo qayb galeen xisbiyada bahwadaagta la xisbiga EPRDF oo ka mid yahay xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna afayeenka baarlamaanka deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo gudoomiye ku-xigeenka ahna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar wafaynta warkan waxa inoo eegay Wariye Xasan Cige kalfadhigan caadiga ayaa waxa ka soo qayb galay xubnaha xisbiga talada haya ee axsaabta kala duwan ee bahwadaagta la oo ku jira xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo mas'uuliyiintiisa ay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo gudoomiye ku-xigeenka ahna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar qodobada aadka looga hadlayaa waxa kamid ah kor u qaadida wax soo saarka dalagga beeraha isla markaana qorshaha in sanadeedka la masneeyo dhul dhan 2.7 milyan lagu guuleystay boqolkiiba 82 isla markaana la sii xoojin doono goluhu wuxuu bayaamiyay shaqooyin dhiirigelin laga qabtay in bulshadan 19.8 milyan oo qof laga qayb galiyo xirxirka biyaha iyo carrada lagu daboolayo dhul dhan 4.5 milyan oo hektar sidoo kale waxa boqolkiiba 60.1 la fuliyay qorshaha in fursado shaqo loo abuuro 1.8 milyan oo dhalinyaro oo ku dhaqan miyiga dalka dhanka magaalooyinka ayaa goluhu waxa uu cadeeyay fursado shaqo loo abuuray 1.5 milyan oo muwaadiniin goluhu waxa uu wasta ka xariiqay in loo baahan yahay in la sii wado dhanka manufacturing-ga warshadaha iyadoo 40 sano la soo dhaafay celcelis ahaan sanad walba kor u kacayay boqolkiiba 13 golaha EPRDF waxa uu cadeeyay in lagu guuleystay in qorshihii la dhigtay in ka badan la hirgeliyay cadida dugsiyada hoose korna loo qaaday tayada waxbarashada iyadoo natiijooyin muuqda laga soo hooyay in carruurtu waxay quraan waxna ay akhriyaan waxa kale lagu guudi jiray in dhanka caafimaadka la sii tayeeyo jihooyinkii MDG-ga ee hore loo hirgeliyay goluhu waxa uu hoosta ka xariiqay in laamaha kala duwan ee dawliga ay guulo ka soo hooyeen dhanka maamulka suuban balse weli aysan noqonin kuwa ay ku qanacdo bulshadu sidaa darteedna dhibaatooyinka jira si meesha looga saaro ka qaybgalka dadweynaha uu yahay mid muhiim ah laamaha kala duwan ee dawliguna ay sii xoojiyeen ku shaqaynta cadcadaanta iyo isla xisaabtanka golaha EPRDF ayaa waxay sheegeen in xubnaha u soo sharaxeen doorashada shanaad ee dalka ka dhacaysa in loo soo bandhigay bulshada midna shacabka ay u qiimeeyeen sidoo kalena kor loo qaaday tirada haweenka taasoo ka badan xilli doorashooyinkii la soo dhaafay waxaana goluhu shacabka ugu baaqay inay sii xoojiyaan ka qaybgalkii ay muujiyeen xilligii diiwaangelinta kaarka codbixinta sidoo kalena EPRDF ay ka sii shaqayn doonto ficil u rogidda xeerka anshaxa doorashooyinka kalfadhigan ayaa socday intii u dhaxaysay 26 ilaa 28 bishan Magaabid 2007 xaflad lagu abaalmarinayay